saddex nin oo wadatay qalabka warbaahinta sheegatayna inay yihiin muuqaal duubayaal ka shaqeysta barta YouTube-ka ayaa shalay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ku soo degay. shaqaalaha eelaboorka aadan cadde ayaa weydiiyay fasaxa gudaha Soomaaliya ay u haystaan inay sii galaan. hase haatee ciidamada dhamasugidda ee ku sugan garoonka diyaaradaha ayaa weydiiyay in amar la'aan la sii deeyo saddexda nin. shaqaalaha garoonka diyaaradaha oo arintaasi ka biyadiidan ayaa ku wareejiyay booliiska Soomaaliya. saddexda nin ee muuqaal duubayaasha ahaa xalayna waxay ku hodeen mid ka mid ah xabsiyada ku yaala Soomaaliya. raggii nabasugidda ee dharcadka ee hogaaminayay shalay raggii amarkooda laga diiday ayaa maanta waxay yimaadeen garoonka diyaaradaha kadibna waxay gacan qaad toos ah ku sameeyeen raggii lahaa mas'uuliyadda saddexda nin in la qabto booliiskana lagu wareejiyo. muran qaatay saacado badan kadib mid ka mid ah shaqaalaha eelaboorka kuwii shalay gacanta ku dhigay saddexda nin ee diidayna in lagu wareejiyo nabasugidda ayaa hadda la jiifa dhaawac ka soo gaaray gacan qaadkii isbitaalka Digfaar ee ku yaala magaalada Muqdisho. dagaalkan waxa uu salka ku hayaa saddexdaasi nin ee booliiska Soomaaliya lagu wareejay sidee ugu wareejin kartiin annaga oo nabasugidda aan warkeena u diidi kartaan. waxaan gacan qaadka bilowga saakay ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho.